وقت الدستور كي سؤال كده حي بالله الشركة حتى كصعدنا وخطر كتير إن استعدادنا الدستور هذا الأمر وفكرة البدلة قبتها لو صوبيرة ولا حسي كانوا بقادرين بدهوينها الدولة تشوبلا kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka rasmi radio qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah madaxda ugu sareysa dowladda Puntland oo soo dhaweysay go'aankii ay qaadatay dowladda Jubbaland oo eedeyn u jeedisay madaxtooyada Villa Soomaaliya Fahad Yaasiin oo xamse ku amaanay habdhaqanka uu kaga duwan yahay siyaasiyiinta kale ee Soomaalida qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaa ku dhageysan doontaan warka rasmi radio waxaa idin soo jeedinaya anigu Axmed Cabdi Maxamed aan ku bilownay madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa soo dhaweeyay go'aanka Jubbaland ee ah in Soomaaliya aysan doorasho dadweyne aysan ka dhicin karin iyadoo ay maqan yihiin Puntland iyo Khartoum State taas oo uu sheegay in loo baahan yahay inay soo fariistaan shirka madasha qaranka haddii kale ay